اهلا فيك يا حبايب مركز الدنيا دافيده كجوت كسو هذا قناه كنيم بأصحابتي تقييم بدن ما tahay isku daytana su'aalo fara badan in aan ka qanciyo aad soo weydiisan way special su'aalaha soo noqnoqda sida Aryan Khan inaan noloshiisa ka soo hadlo iyo sidoo kale ahaan banday inaan soo barbar dhigo iyo waliba su'aalo fara badan oo maalmo u dambeysay aad igu soo celcelinaysan insha Allah iyo agtara badan iyo dirshooyin badan ba meesha ku dambeeyna meesha ka dhaceen marka ku soo dhawaada horta ninkan Aryan Khan waa run xiriir uu leeyahay xaq xiriirkiisa marka ku horeeyo gabadh Brazilian model ah ayuu la sheekaystaa wuu ku cindan yahay sokorta iyo sibibta isku yihiin sonkorta iyo sibibta isku yihiin ilaa in badan dhowr sano wada socdaan 2020 xitaa bishii September markuu promotionkiisa u sameeyay filimkiisa u sameeyay promotion xitaa way wada socdeen waxaad moodaa xaafadana inay si fiican isku fahmin inuu guursan karaaba laga yaaba macquula waayo Suhana iyo Shahrukh Khan xitaa si gaar ah ula kulmay baa la arkay yani xaafadii xitaa yartu soo jiidashay ku samaysay iyagoo isku fiican in badan bay la fiijir isku yihiin sokor sibit isku yihiin bashbay isku yihiin meel kasta isku raacaan meel kasta wada tagaan marka inantaas si rasmi ah horta ula sheekaystaa si rasmi ah qof aad u doonayay xiriirada Aryan Khan inuu ogaado inantan ay imika isku dambeeyaan inantan laga shaqsan yahay inuu guursan doono marka dib mustaqbalkiisa uu saldhigto sidoo kale waxa aad loogu xaman jiray inanta la yiraahdo Shanaya Kapoor Shanaya waan garanaynaa abeedan garanaynaa intiina badano waa Sanjay Kapoor Raja ayaa dhalay inanta yar marka inantaas bari isku cindanayeen laakiin tana kaga dambaysa tana ka awood badan tana هذا الهانت وين دالي سمر والبا أي وضع السودان مرور بيقول تشوفن متى كله صورة وحلا عركة صورة ده إمك هذا كاركتان أدمتين أز كسر دوجه يعني السيد اللي بقى في حرير رسمي كده حي وحد ظاهر يا شمس ويا يعني وحلا حقير كرا إن على قرصن كرا ما أحا مركا حرير كيس واقع حرير كيس هذا هذا كان مادنا أريان نوفمبر بود شاسد حتى بانك 1997 وانين ستيلا تنشر نير معها مركا لا إيجو أبيه هلجن كي إيش وكسب بالعبي مركا لا إيجو يسقوا وين waxaa la sheegay in uu filmo badan uu sameeyay laakiin qaarkood uu codeeyay qaarkood uu direct gareeyay qaarkood uu writer gareeyay uu filmadiisa ugu caansan ama codadka uu saaray filmka uu codka saaray ugu caansan ee khatarta noqday cabsida noqday xitaa local filmski cabsi galiyay waxa weeye Indian version ki Muvaza The Lion filmka isaga baday ajiib waxa ah isaga aabihii walaalkiisa yar ayaa atorayaalka ahaa kuwa kale way caawinayeen agtara kale caawinay sida Sanjay Mishra iyo Sharayaas iyo markaan dad kale caawinay laakiin waxa weeye SRK oo Mufasa ahaa Aryan Khan oo Simba ahaa yaan Simba yarna waxa ahaa Abram waa ka yar walaalkii marka familkii baa isku duubsaday filmkaas waxayna ka dhigeen super double hit bay ka dhigeen waxaan inaba caadi ahayn bay ka dhigeen xataa wuxuu ka yaabiyay filmkii Dunki ee Shahrukh Khan watay iyo filmkii Houseful ayuu garaacay baa lagu leeyahay yani film khatar ka noqday saameyntiisa leh oo aad ugu guuleystay dalka Hindiya oo laga filayn macna dhacay inta laga box office oo ka soo hooyinayo 700 million ayuu ka soo hooyay marka xagga codadka iyo xagga maartay directornimada waxaas ninka yar ku fiican yahay filimkiisii ugu horeeyay ama musalsal xagga Netflix laga soo daayay waa dabadaas Bollywood oo wada garanaysa filmka oo film aad u qarxay u noqday musalsalkaas uu guuleystay kaas oo ku helay ama uu ku hantay abaalmarin 19 imika daraad best debutant director buu ku helay isaga filmka qortay isagana direct gareeyay waxa xusid mudan inay saaxiib ahaayeen ka yare isna ina banday ina chiki banday waa ahaan banday isaga iyo ahaan lama dhex fadhiisto waa laba saaxiib oo aad iyo aad isugu qaaliya waxa isla haayeen caruurnimadii way isku soo akoreen way isla soo waaweynad labaduna waxay si waali u jecel yihiin baa leeyahay kubadda cagta markaas aad darteed saaxiib qoto dheer weeye taa iyana waxa si adkaysay baa lagu leeyahay in Shahrukh Khan bilowgiisii xilliyadii uu halganka iyo duruufaha ku jiray ee uu soo galay Mumbai yaa soo dhaweeyay waxa soo dhaweeyay reer Bandi baa soo dhaweeyay oo waliba brotherska reer Bandi hadii yahay Chanki haduu Chiki yahay labadooduba si fiican bay soo dhaweeyeen laakiin Chiki baa si weyn waliba soo dhaweeyay waayo filimka Fauji ee musalsalka ee Shahrukh Khan ugu horeeyay wax uu la yimaado shaashado oo filimada Bollywood inta si taas soo gal
lagu bartay waa Fauji oo demiha malina halka ka jeclaatay oo filimkii u horeeyay u dhiibatay moogtay Shah Rukh Khan marka Fauji filimkaas waxa lahaa nin la Colonel Kapoor wuxuu ahaa director-ka filimka Shah Rukh Khan iyo ay matalayaan musalsalkaas marka colonelkaas wuxuu adeer u ahaa Chiki iyo Chankey buu ahaa reer Banday ayuu isku ahaayeen adeer buu u ahaa abihiin adeerkii miyaa adu something like that marka halkaas isku barteen kadib waxay siiyeen guri bay siiyeen meel u hoydo cuntay siiyeen way soo dhaweeyeen maadaama filimkoodiina matalayo in yaroo iska xayraan uu yahay xayraan halkii u dambeysay Shah Rukh Khan ha iyaga nolol siiyay reer Banday maalba TikTok kaga soo sheekeynay qaar baa yani ka dhigayay in Shah Rukh Khan iyo ay wax caawiyaan Shah Rukh Khan iyo isaga la soo caawiyay oo dhulka laga soo qaaday oo maanta uu halka taagnaado reer Banday taa ogaada reer Banday ayaa ka dambeeya reer Banday ayaa horumarkiisa ugu horeeyay sababay ninkan odayga ee Shah Rukh Khan horta taa hal isla fahmo dad badan bushikiga jiray halkaas ay ku saaxiibeen waliba taa waxa si raacday Shah Rukh Khan maalmalkada jeelka la dhigay isagoo deeska wali xayraan oo noloshu wali la halgamaya dabadeedna Chiki ayaa ka soo daayay oo soo damintay jeelka soo damintay marka caruurtiin waxa isku noqdeen nasiib wanaag labadii odayna waa saaxiib Chiki iyo SRK labadii wiilna way saaxiibeen nafta isu bixiyaan bal lagu leeyahay aad bay isu jeceliin xitaa maalmi dhaweede Sayara xafladii loo dhigayay aad isaga uga qayb qaatay ninka la Aryan Khan way isgarab istaagan ilaa abiyaashooda isgarab istaagi jira xaalado badan ba isla soo mareen nolol badan ba isla soo mareen waayo badan ba isla soo mareen carruurnimo fara badan ba isla soo mareen labadan inani haddaba labadan inan xaafadooda waa iska garashay marka xaafadeena oo kale aynu joogno marka inaabtiga wax sameeyo ama hawrdaaga wax sameeyo ama saaxiib qof jaarka wax sameeyo waxa la oranay hebel waxa uu sameeyay aduma sameeyay yaani aad bal isu barbardhigay maadaama 2020 labaduba ay soo wada baxayeen 2020 midba wadu qaaday hadaba eeg midba wadu qaaday oo kan wuxuu qaaday Aryan director iyo inuu writer noqdo oo filmadana sameeyo qorona director garayno filmadana qoro kana wuxuu qaatay inuu actor noqdo marka haddana waa isla halkii waa shirkadii Bollywood ku bay ku jiraan marka maadaama Sayara filimkaasi si weyn ugu guuleystay inanka ahaan Banday ayaa aad loola bardhigayay maadaama kana filimkan Badass of Bollywood soo waday ayaa lahaa talo isna filimkiisa ma guuleysan doona mise director flop noqon doona maadaama ka yarna actor cusub uu ahaa oo hadii la hayda kada leeysna ku cusub kana director cusub kana actor cusub ma u guuleysan doona sidii ahaan Banday maadaama saaxiib haayande nasiib wanaagku maanta abaalmarin bay haystaan oo abaalmarintan Indian Best Debut Actor ama Director labada ay kala qaateen sanadkan the Actor of the Year iyo the Director of the Year bay sanadkan qaateen yani taas cajiib ahayn wallahi nasiib badan bay leeyihiin yani mid walba Ciise ayuu ka faraxsan yahay inamadan hambalga ayaan leenahay dhinaca hadaan u bayro inan kala yiraahdo ahaan Banday ahaan horta wuxuu ka soo bilaabay isagu horta short video iyo social media ku jiray social media caadi oo ha moogtay TikToker buu ahaa Instagramer buu ahaa waxyaabo fara badan buu ahaa isagu wuxuu ku jiray social media haday TikTok tahay haday Facebook tahay haday Instagram tahay haday Snap tahay meelahaas ku jiray videoyo iyo short films waxaas looga bartay inan kan ahaan Banday lama filayntay guusha inta la gano soo hoynayo assistant director wuxuu ka soo noqday filimkii Freaky Ali ee 2016 hadii ilaahay dankeeda leeyahay haddana adigu meelo yar iyo waxyaabo yar oo fiidiyoyo iyo riwaayado iyo eventska iyo meelahaas soo isiyir taag jiray wuu dadaali jiray ilaa loo dhiibay filimkii weynaaye ka soo baxay shirkadda YRF Sayara tuuto badla nahi hai kaas ku noqday xidig aan inaba caadi ahayn kuna guuleystay sidoo kale abaalmarinta ayna iminka ka hadlaynay taasoo la yiraahdo Indian Best Debut Actor of the Year abaalmarintaasna gacantu ninkaas ku dhigay marka uu guuleystay isaguna aad buu guuleystay labaduba waa Aryan iyo
ahaan bandee labadaba guulo lixaad leh sanadkan waa sanadkoodii oo sanad ay saaxada ku cusub yihiin waa sanad ay abaalmarinadii qaateen waa sanad filmadoodii la jeclaystay runtii laakiin aniga markaan isbarbar dhigo awoodda labada filin yani labada kan waxbuu director gareeyay waa directorku wuu kasii pressure badan yahay oo ma xaqiri karno aryan filmku wuu director gareeyay haddana wuu soo saaray haddana waxaasoo dhan wuu laakiin isaga aad iyo aad waxaa u garab taagnaa aabihii waxaa loo keenay actara waaweyn oo culculus bismillah actar ka maqnaaba garan maayo marka anigu waxaan aad usii ammaanaya labadooda markay timaado anagoo mid walba nasiib wanaagsan u rajeynaya laakiin labada film marka labadooda talenti ama labadooda awoodood iminka sanadka markay isbarbar dhigno aniga filmka Brass of Bollywood kama helin runbaa wanaagsan dad waaweyn oo caan baa loo daawan karayay wuxuu qiso ku fadhiyay garan maayo qofkii daawado bal wad qaldantahay soo dhe wuxuu ku wanaagsanaa bal ii sheeg leeyahay ku dhaash waxa la wuxuu ku wanaagsanaa in yar baan filmka dhanka helay musalsalka 8 qaybood miyuu ahaa episode in yar baan kale inta yare duniya hasino camera muna lagu soo darayo ayda lagu soo bedelayo wallahi billahi waxaan ka helay filmka garan maayo waa iska caadi buu ahaa iska okay buu ahaa haddaan xagga ahaan baande usoo noqdo wuxuu xaqiijiyay inuu xiriir lahayn inantan Anita aad la isugu xamanayay laakiin wuu cadeeyay wuxuu yiri saaxiibadayda qaaliga weey laakiin not my girlfriend gabadh laakiin aniga aan jecel xiriir naga dhaxeeyo ma aha waa saaxiibtina wanaagsan oo qurux badan ayaa naga dhaxeeyay iyada laftigeeda abaalmarintaas uu qaatay oo kale waatay qaadanaysay waateen u mahad celinaysay lahayd yani xaalado fara badan iyo caqabado fara badan baan sadka dushiisa kula kulmay laakiin isaga awood ay siinayay garabna ay siinayay waana u mahad celisay waa saaxiib qaali waa ninka adduunka ugu wanaagsan bay lahayd Anita laakiin waxay ka soo muuqatay iyadu filmo hore ka soo muuqatay musalsalo hore ka soo muuqatay ma aha wixii ugu horeeyay ay sameeyso filmkan Sayara laakiin waa filmkii ay ku saldhigatay ama aqoonsiga lixaad kale ay ku heshay waayahay labada inan iyo inantaas ba saddexda saaxada fanka ku cusub waxaan leenahay nasiib wacan eedooyin habar yarooyin yaa anigu dila waaweenkii baan hayo abayaashoodii baan garanayaa eedooyin habar yar soo weynaada oo kora oo guuleysta ducaanadu ku darnay muslim horta ma ahaydeen qaarkiin ba inta kalena soo raaca insha Allah laakiin kan nimaadno Aryan Khan iyo ahaan bande actorka iyo directorka saaxiibka ah inuu gano qofka saddexaad wuxuu noqonaya waa Nakul Kapoor inagoo dhan waxaan ku naqaanaa halka film caan ku yahay halka filmna waxa weeye aake pari और तुम मुस्कुराने की बात करते हो तुमसे अच्छा कौन है वो फिल्म कल रहा था फिल्म बहुत बहुत मतलब मुझसे मोहब्बत भी मतलब टर्मिनल सिटी भी मतलब आजा मेरे यार भी मतलब और फिल्म अदू इसके उसके मतलब लेकिन इन्हें को हल्फ का फिल्म بنكون قانا sida actor kale aan soo wado marka ninkani dhowr filin markay si wali ay ugu guul dareysteen ayar buu isaga siibtay oo iska guursaday caruuska dhalay family buu samaystay Canada u guuray bari horena inanka waa ka soo sheekeeyay muxuu ahaayay macallin yoogu noqday oo xagga Canada ayuu macallin ka yahay halkiisaas uu iska furtay Divine Light Yoga wal yoga ah oo yoga center ah ayuu haystaa halkiisaas dadka yoga ku bara qof caadi iska noqday bini aadankiisu dhinac ka raacay xaafadiisa iyo reerkiisa mar raxle gabadh buu dhalay marna inaan buu dhalayo aad buu uga ilaaliyaa noloshiisa private buu ka dhigay aad buu uga ilaaliyaa warbaahinta gabigiisu waa is ooday meel gooni ku nool yahay cidna afaariisa ma taqaano cidna yani isaga ismoosay isaga kan isqariyay qof wala qariyo maqash qofna isaga isqariya kan isaga isqariyay marka ninka Nakul imka macallin yoga Canada ku nool waan caafimaad qaba heer caalami noloshiisa dib ku jiray la qofka bini aadanka ma haynaad xidig noqotida xidignimada lagu sheegay waa taad naftaada marka ka aaminsan tahay waxa dareemaysid marka isagu wuxuu ka muuqataa ama sheegaya in noloshiisaas uu habi ku yahay iyo macallinimadiisaas marka ninka Nakul halkaasan kaga tagaynaa mid kale jira hadaba hal film isaga laftigiisa aan u naqaano gabigiisa hal film baa kugu soo dhacaya actorku intan kugu soo dhacay filmka kugu soo dhacaya kan iyo kamba intani ka sameeyeen ninkan wax la karanaad waa inaan kiisna yedil aashikana yedil labadan film ba heesaha ku jiray iyo actoradu waa si fresh ka u ahaayeen uuna qurux badnaayeen una dhisnaayeen una soo jiidasho lahaayeen talent noo ahaayeen wad yaabaysa
الله محو نصيبكم يقدركم ضد كلا هالرئيسية لوضعن أكتر عادي ما هن والله عادي ما هن لكن نصيبكم ده سان نقضي حتى بكاس الرير يوغا مستقبل في عم بوصة ما يستهي بل كان كورن لو حيقوس هن نقضي وجيب جيسبه وحو نقضي أيد أبهود برو داد أوف دوغز بو نقضي oo ay badan oo kala nooc haysta mid buu xitaa magacyada familkiisa ugu magac daray wani Sofia Nat buu mid yiri oo Francisco ka keensaday aydu ninkan ku dhintaa balaayadani karan iyo ayda lama dhax fariisto carruurtiisii muxuu wax guursadaa aydu carruur ka dhigto ka dhigto wada karmay laakiin aydu haystaa kale ninkaas 17 ayuu kala nooc buu haystaa marka karanaad nasiib daradaasa u dambeysay aydaas uu xanaanaystaa aydaas uu xoolasha u kala bedelay xafaayadaha marka waka ala ma aktar laakiin isaga laftigiisa filmo badan dhowr film buu ka soo muuqday laakiin filimka inuu ku xasuusan karno waa filimkaas iyo dilaashi kana waliba kan hooyadii waxay ahayd directorad producer filmaha deyd qor jirtay waliba filimka weyn saacan hooyadii baa qortay lagu leeyahay arsu iyo هم تمارة سن حتى فيلمكاس يدا حققت بالقلية هو يدي وتالنت أوهي حتى ديك بالونت من تالنت متكلم من كان لادر كحتى أفتر موقع لادر كان كرانينا أنت حبك لا أنت عد محاول نجرتين إذنكم هاو تقانين إن أضيق يراي فوت عدا دانيرا أيوة السعس عنشرين أنت بدن مركا نكان أي أفتر موقع مركا يسوق شركة بولورك waxba de ma garanaysa familkiisa ku jiray muuj wax ka soo noqday aydu u batayna kaalmihiim hadal ya dhamaan inankii aydu u batay 48 jir ay haysta weey halka kalena yahay 50 jir mustaqbal fiican iyo carruur iyo family iyo macalimo iyo jooga ka fikiray iyo jadis marka waa kuwan labadan ninada iga qabta iyana waayahay qofka shanaan soo qaadanayno waa gabadha la Ragashwari Lomba runtii inanku waa garan waayay markuu la Ragashwari xaqaad ku maqlay soo adirashadan yar oo adirashada gabagabad nolosheeda bashan film bay mudashay ala imtixaan sanadina waryaarahan imtixaan fana ciyaal hindi ilaahna cadaab ya rab ilaahna cadaab khaatimad khayr nooga dhig shan film hal film tii ku jirto waa soo qabanaysaan alla shaydaan sana gabadhan gabagabada nolosheeda shan film bay leedahay laakiin waxay ku darsatay inay noqotay fanaanad weyn oo albunay soo saari jirtay laakiin xaq filmada filmkaameen khalaatu anaari aad sheegtay baa ugu caansan aan khayr iyo sid iyo adu afar film gabagab shan film baa u diiwaan gashanay mitashay nolosheeda marka gabadhan waa 48 jir waa sidan sheegnay aktarad sidoo kalena fanaanad bay ahayd laakiin inantan waa maxay sababta ka reebtay oo laf dhabarta ka jabisay oo uga hadhay fankii iyo waxaan ku yiri artistkii ay ku jirtay sababta ugu weyn waxa weey inantan inuu ku dhacay afqalo macnaa shibir ba ku dhacday maxay filin walaal mutasha maxay inantii walaal heesta soo taafkii iyo ishii ba isku dhigtay afqalo ba ku dhacay shimbir ba ku dhacday moojmay fiidkeeda socotay fiid meer dhirbaxday mooji gabadhi way xanuunsatay maxay noqotay dantii ku kliftay iyada focus ka saarto iyada oo kaliya caafimaadkeeda iyo terabigeeda iyo physiotherapy-geeda iyo waxaan ku raadin lahayd yoogadeeda ay xoog saarto inantii welcome and inaba caadayna welcome back bisameys xagga caafimaadka marka caafimaadkii ay ka soo kabatay wajiga caad u noqdayna waxay xoog saartay inay dadka dhiirigeliso maadaama ay kana guurtay horta nin bay guursatay Ingiriis reer Ingiriis xariga UK oo lawyer ah inay rabo haysa Soomaaliya leeyahay nolosheeda xaggaas marka ka bilaabatay si fiican marka aad bay dadka uga wacyi gelisaa waxyaabaha martay caafimaadka qosay especially waxaan ay soo martay iyadu xanuunka ay soo martay iyo sida uga soo kabatay iyo dadaalkii waxaas dadka ku dhiirigelisaa hawsheeda iyo nolosheeda inanta ay soo saarantay may dhiman afka qaloocanayna isku soo noqoy caadaas maraysa Ragashwari caadaas walaal maraysa waayahay qofka lixdan soo qaadanayna waa kancan anigu dhowr film baan ka jeclahay inkastoo gabageeda filmo yar leedahay 23 film laakiin filmka awlaadkeeda dushman waa filmkeeda ugu weyn xaggayga ugu qiimaha badan awlaadka dushman filmka waad ku jirto wanaagta kala qallibaysa armaan ku hulida madaxa dhulka uga taagaysa aynaba caadi ga ahayn filmkaba gabagiisa qisada iyada kala rogaysa waa ka shagtay iyada soo kaaysanaya
macna filkaas waa 10 caadi ah qofkan daawadan aan waxaan la walaas ka daawo way waalidka iyo ubadka ay filkaas ka sheekeynaya waxaan aad iyo aad filka uga naxaa hadaan yar dul istaago marka aabihii intuu lacagti naag darteed uga saxeexo aabihii waxa khasaare galiyo isagu markuu soo yeeshaqaysto dhowr rubi aabihii tuugtu ka soo qaadaan oran yaab lacagtayda isii oo adeerkii yaabayo oran yaab ninka inta soo soo korinay hantidiisa aad naag ku saxeexday bad imka dhowr rubi miya ayaad maanta ku dilaysaa oo isku xishoonay isku yaxyahay filkaas inna caad ma filkaas aad baan u jeclahay filkaas ku jirtaa oo banaagta de filkaba kala rogaysa filka kale aan jeclahay waa filkan army oo filkan jeclahay iyada booskay kaga jirta filka ma jecel laakiin waxaan jeclahay hadii ilaahay kada filkii ku jirta jeclahay filkan shirdeef waa filkeedan ugu jeclahay filkan iyo filka anilka bur iyada urmila ay kala iibsanayaan labada film baan shirdeefta weyn filmadeeda aan ugu jeclahay wallahi labada film baan ugu jeclahay marka filka Bobby baa la yiraahdaa armaan ka sheekeynaya dani oranaya ishada saddexaan taani furmin shirideefi de nafta ku dhibaya shirideefi shanta atar filkaas in baad ma qofka daawaday baa daawaday filka laakiyada ku qaraxday oo la aqoonsaday ee ku saldhigatay waa filkeedu ugu horeeyay waana sanan bay waafa filka Salmaan Khan kula jirto bismillah si aan nabcaad ahaan filkaas ugu guuleystay iyadana aad baa filka loogu jeclaaday aad baa loogu jeclaaday hase ahaatee nasiib daro inantii saaxiib caawisun baa laga sugayay cidna kumay macna aaminin filin dhamaystiran iyada hogaamso uga dhigaan sadarteed dib uga guratay markii dambe waxay go'aansatay maadaama filin aanay matali karayn sida ay rabto sida jeceshahay macna aktarada koobaad waxay go'aansatay inay noqoto drama teacher oo ay dadku wax barbarto riwaayadaha wax noocaas waliba magaalada Mumbai dhexdeeda marka gabadhaas sida darteed ayaa ay uga tagtay shirkadda Bollywoodka si ay rabtay ama si ku tashanaysay ay u noqon weeday gabadha qofkii la leeyahay waa lagu jecel yahay laakiin hadana fil loo dhiibanin ama door fiican aan lagu aaminin filmo badan baa loo dhiibay door yar baa loo dhiibay dabadna marka aragtay cidna inaan garay u soo jeedin ba iyadoo istiri noloshaada gaar ka dhigo saas darteed waa iska ilaalisa baa lagu leeyahay iminka hadar warbaahinada iyo meelahaas oo iska yarniyay jabtaan sirma xaalad ku nooshahay in carruur dhashay in nin gursatay intaas oo dhan ma cadda asxaabteeda marka barnaamijkeena maanta intaas uu noogu eegyahay waan idinka mahadcelinayaa sida quruxda badan ay dhiirigelisaan ilaahay joogtaan kanaalkeena aad uga warhaysaan runtii aad baad u yartihiin laakiin tayaa leeyihiin maxaa qarqarteedina way qofkii arkaba haduu la gareeyo marka asxaabteeda way la socdaa kaliya laab aad ma wada mahadsantahay thank you for watching